odayaal ku dhaqan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay si kulul uga jawaabeen hadal uu Sheekh Shibili ka sheegay warbaahinta. war arrinka ku aadan waxa Jowhar inooga soo diray wariyaha RTN halka kaga soo warama ee Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa si weyn loo hadalhayay baraha bulshada Soomaaliyeed ee isticmaasho gaar ahaan Facebook in lagu sheegay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa aatay sawirkiisa waxaana arrinkani ka hadlay culamaa u diinka Soomaaliyeed iyagoo uga hadlay siyaabo kala duwan. Sheekh Shibili oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu u eg yahay jareer waxaana uu sheegay inuu yahay nin jareer oo fool xun waxaana siribaan abuur marka laga soo tago hatta haduu baan abuuranayo من قروح بدن بواي من فوحنا جريرة ونبي إن لا يراد من كان دروح كلام ما قانو وحكر الله يابله هس يعني كان واقو داري صور بانا وبانا هذا بنتم مقطع فالحن وهدنا ميكلا وداري هي أفلق دوي هذا بدك كو أبتر صدق قومية داسي أي عرقتيه كلا دون كديبتي waxaana ay ku eedeeyay sheekha inuu ku xad gudbay qowmiyadaasi. Sheekh Shibili wuxuu ka mid yahay culimada waaweynka ah dhowr goor ayuu khalad galay macnaha manaka sheekhan ku tilmaamayn karnay sheekh ma ah ma dhihi karni sheekh oo macnaha oo qowmi dhan oo wax ka sheegay oo dambi ka galayo ma dhihi karni macnaha sheekh way marka culimada islaamka waxaan u sheegaa ninkaas oo waxa soo dhigay macnaha misibirka soo dhigay ninka sheekha oo macnaha oo ku hadlay macnaha qowmiyadan oo wax ku tilmaamay haduu ahaa lahay jalaac macnaha soo dhigay maxaa ku tilmaami lahay macnaha si kale uu tilmaami lahay hada qowmiyadan oo yiri macnaha ayuu yiri macnaha jareer fool xun way macnaha kelmadaasna waa kelmad oo macnaha oo diintana oo ku jiran diintana macnaha midna oo ku jiran sheekha waxaan u sheegayaa in oo badiga oo qoom dhan u soo qaato oo isku caasmo ma laga rabi khayrka ma in hadan si loo soo wadi oo Nabi Maxamed uu keeno waa qalad marka sheekha ka hadlay ee dhahay marka isla mar aantaas Nabi Maxamed ma samaata waa qalad in la soo dhigay Facebook ayna lagu matalo qowmiyadan oo jareer weyna gafuur weyna oo jareer oo siirahana sheekhaasna qalad oo gal Sheekh Shibili akatooba keena leenahay maxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay at'anu bil nasab tukaffiru ummati at'anu bil nasab macna nasabka ay durayso ku gaaloobaysa irliga waa sharafta من رد عن ارض اخيه لو سولى نكي ولالكيس شرفتيس wax dhimaayo ninkii ka celiyo rad Allah wajhu yani naar yawm al-qiyamah naarta ayaa asaga loo kuriya marka sheekhaas waxaan leenahay sharafta ummadda u dhimaysid wax iska ilaali من Nabi Maxamed oo lagu matalo dad gafuur weyna ee jareer isku matalo ma ahayn dad kale isku matalo ma suwaa ina siraa Sheekh Shibili ilaahay min aadanka waxa way laqad khalqna al-insaan fi ahsan taqwiim wa ilaahay waxaan ka awuuray sawirta wanaagsan ibn aadanka saasan ka awuuray marka meesha uu ka keenay aan rabnaa inuu yiraahdo gafuur weyna way sababtay ku dhacday ee ninkaas in lagu matalo nabiga dad kale isku matalo ma suwaa taas oo qalad Shibili waxaan leenahay taas akraa la galay ummadaas hana ka tooba keenay waa gafay qof baa wuxuu yiri sabirka Nabi Maxamed waa kan alayhi wasalaam ana Maxamed ka been shay markaas uu sheekhi wuxuu dhahay sabirkaas waa nin macnaha oo waa nin jareer ah oo fool xun ayuu yiri sheekha macnaha haduu macna qowmiyad oo ku kacsan yahay ma aha inuu qowmiyada aayo waxa leeyahay hadaad sheekha tahay waxa loo baahan yahay in ummadda Nabi Maxamed alayhi wasalaam runta inaad u sheegto aad waxyaalaha oo xun aad ka celiso waxyaalaha oo macna wanaagsan aad u farto ma aha in qowmiyadan oo maanta Soomaali joogto midna Soomaali kuna inaad macna aflagaadeeso waa laga fiican yahay Soomaaliya ayaa waxa ay kamid tahay dalalka muslimiinta ee dunida ee lagu tiriyay dadkeedu ay yihiin 100% muslimiin waxaana xilligan soo ifbaxaya waxyaabo aanan lagu arki jirin gudaha dalkeena Soomaaliya taasi oo lid ku ah diinteena Islaamka. Cabdishakuur Shaasha RTN Jowhar.